حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لها قيارة صعبتان جعلها جنرال كيغان واني وعي قليكو حيران يولي بفيسبوك بيج كي سنة داواني صباح هذا الله هاي سود وادا قيارة أصحابي ما انتو حاربا إن شاء الله إنا إذن لو ذاقو qaabkaad u akhrin kartaan suuratul baqara ee qaabka anigu u akhriyo maxaa yeelay laba qis ayaan ka soo hadalnay oo ku saabsan faa'iidooyinka lagu helo suuratul baqara waxaana idin ballan qaaday waxay tahay inaan idin la wadaagi doono insha Allah ilaa idinkiis qaab fudud oo maalinta gelinkeeda intuusan maaragtaa adiga 24 saac gudahood aad ku dhameyn kartaan suuratul baqara insha Allah. suurada anigu waxaan bilaabaa akhrinteeda salaada subax kadib sida ogna horta suuradu waa laba juz iyo maaragtaa iyo saddex maqro iyo maqro kale oo bilaaw ah oo maqrada ugu dambaysa ah. marka waxaan sameeyaa suuratul baqara waxaan bilaabaa subaxdii salaada subax kadib juz baan akhriyaa laba qayb baan u akhriyaa marba qaybtii aan ka gaaro marna waxaan sameeyaa juz baan xilligaas akhriyaa maqrib kadibna waxaan akhriyaa juzka kale isha kadibna waxaan akhriyaa inta maqro iyo hadhay markalna waxaan sameeyaa waxay tahay haddii ay taasi ugu yara adkaato waan kala qaybiyaa salaada subax kadib waxaan akhriyaa 7 maqradood salaada maqrib kadibna sidoo kale 7 maqraan akhriyaa 6 maqrbo isoo hartan 6 maqro isoo hartani waxaan akhriyaa salaada isha kadib waxaan rajeynayaa insha Allah qaabkaas fudud haddii aad sameeysin in idin fududaan doonto waliba haddii aad tahay qof quraanka ma aragtaa qaybihiisa kala akhriyo maalin walba akhrin jireen waa dhax gashan kartaa oo aan hadda markaan 6 maqro kala akhriyo isha kadib 6 maqro oo ugu dambaysa markaan akhriyo markaas oo kale intood quraankaygii akhrisan jiray wixii ma aragtaa aan ka akhrin karaan ka akhriyaa haddaan xisib akhrin jiray haddaan laba maqra akhrin jiray haddaan wax juz am akhrin jiray waxa akhrin jiraan ka akhriyaa marka haddii aad qaabkaas fudud insha Allah isku daydaan waxaan rajeynayaa idin fududaan doonto suuradan aad akhrin doontaan carabkiina hadduu suurada la qabsadane waxa weeyaan aad iyo aad waxa u fududaan doonto insha Allah inaad dhameysaan oo maalintiina aad ku soo gabagabaysaan intaas insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen qaabkaan suuratul baqara u akhriyo insha Allah ilaa idinkiis qaabkaaniiti haddii aw maaragtaa idin la cuslaadana qaabab kale oo dadka ay tajrubiyeen insha Allah idin soo gudbin doona waa maasantiin khiyaari asxaabay waan ku maasantiin daawashadiina sida quruxda ay la socotaan insha Allah fiidiyowga wixii inta kulmeen waxaad kaga taagay wixii salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.